Smoking is injurious to health. Smoking causes cancer. പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. وموسيقى آدو معا.
xagga fiiriya imaada kii dambiilaha ma ahayn oo kale mar kasta waa la xiraa isla markiina waa la soo daayaa waad saxantahay عمرو ماذا حيلكم قصي ها وكسا لال بندارية أبو كاتو أهاي كنتم كيس كبدن نواقله رير كريلا ميا مسرر جناي أنيق تاس ما أوجي لكن مقعيسا كو كسالوس أنتوني الله مدة كلا دنبيال فربضن وقال ديلها أهات دعها أهات بابها أهات ساسيته ولا حيرة هدي لحيرنا ولا سودينا هذا دنبي كان لو هسته هدي لحيرة وحا ملينا ولا سودينا له إلى القفح كقبنا سمل عدينا لو مهلاي dadka naga soo horjeeda marqaati ma haystaan naagtiisa kaliya joogtaan ku dhaw ilmana inay hadli doonto ka baqin naagtana ma hadlaysa mudane midaas anigaa soo dhameeyey bravo baba mar baad ii sugtid beel waan ku leh sabax filaase dilka loo geystay 35 jirka Regis Tawari oo dhalay ninka lagu magacaabo Mahan Tawari ayay maxkamadda ku waysay wax cadeen ah dilkaas oo loo haystay ninka lagu magacaabo Louis Anthony haddana maxkamadda markay u waysay cadaan iyo marqaati Louis Anthony way sii deynaysaa booliiskana waxay amraysaa inay gacanta ku soo dhigto dilaaga saxda ah runaatii magaalada dilku waa uu ka soo batay suugadan dhallinyarada ay baabiina ilaa haddan ma arko cid wax ka qabanayso arrintan ku laabasha ayay u baahan tahay isaan laguma fiirsan karo burcadda hadda idinkaga sheekeynaya waxaa madax u ah ninkan lagu magacaabo Louis waa 33 jir wuxuu dhashay 85 wuxuuna ku dhashay magaalada Kerala 89kii waa uu ka guuray wuxuuna u guuray Delhi 17 jir markuu ahaa iskuulka uu dhiganay darooga lagu qabtay ninka ku qabtayna waa uu dilay sidoo kale wiil isku fasal ahayna wuu dilay 2002 laga soo bilaabay ilaa ay hadirtaan dilka waa uu wada qolo gaangiistare ayuu gacanta isku dhigay kadibna way isbeeseen go'aan waxay ku gaareen qorshooda inay hagaajistaan kontonkiisii ka badan waa uu geystay ilaa haddana waxaa la yaabanahay sababta ninkaas loo soo xiri la'yahay wuxuu joogaa magaalada lagu magacaabo Kotsrakand gaangiistarada karaseega uu barana meeshaas ay kula soo yihiin askari waxaan ka rabaa meel walba karaseega lagu barto baaritaan inaad ku samayso wax walba aad kala kulantani ila soo socodsii arrinkan ha ka caajisin waxaan rabaa horumar inaan ka gaarno hal nin ayaa aqaana oo qoladaas ka tirsan macnaha waxaan ula jeedaa qolada kunkufuuga sidoo kale waa reer Kareella magaciisa niishay macalinka kunkufuuga
bayrito haa buu soo hadal maxaan kaa caawiyaa sideen kuu caawiyaa macnaha muuqaalkaanan ka wada adigay walaal rishi practice aa samaynayseen oo kung fuga waxaa raba marka garab inay siisid garab aan ku sii maxume practice noocee ah waan jan kung fu wayna waaw nin caqli badanaa tahay igar aqli loo ay maa nin aqli loo miya wiilka aqli looga haya saas le ku wadiyaa sheekada halak walaalkay winjan ku ciyaartan inta sidee ku ogaatay muuqaalka hoosta islaam ku qornaahe saas maana ku dhahay filinkii ibmaana fiirsa saasan ku ogaadayna swinjun beela tahay ay bi maanka yaa waa ishe dooniyan warda baalo dooniyan atooraha filinka ay bi maanu ahaa hooy rawaan wiilka doqon hadhiya inay doqon ku tilmaanto way ku saxantay sababtoo hadalkeeda iyadu way ka fiirsataa wayna ka fikirtaa marka noo sheeg adiga ayaa fikiree ay bi maan burusle macalinkiisa waa saxantahay rawaan hay soo dhow haye sheeka lahaaya sirid korkeeda meesha maxaa ka dhacaya caadi leh waa iska baashaaleyne hay ma dhamaysateen marka haa waan sii baxayaa aniga safaraan ahayba waa inaan salaam macallin hay mbixusa beelo waay jibigayga soo hayna beelo ahaa macallin wax dhibaato inaan la kulmana rajeynaa maya gurigayga kale ii ahaaba waaba gurigaagaba heshiisaan ii gaarsiiyey waaya macallin axad waad noo soo laabanaysaa soo maaha maalinta axadda fasaxaan leena laakiin isniintaa rabaa inaan dalxiis aado okay fiidka isniinta ama subaxa talaadada shoba ah gabadha wadda bastajada geeyey waaya anigaa geynaya okay beelo haye waxbaa ka baqin anigaad igu sintay anaana meesha geynaya okay waaya beelo 6 bilood ka hor ayaan hadalkaan imid waxaanu imid inaan shaqo ka sameeyo laakiin shaqadaasi way ii suurtageli weyse ugu dambeyn lala ayaan ayaa soo wacay wuxuuna ii soo wacay shaqadan waanu imid si aan adiga kuu geeyo baskaad inta ka raacda rejiimiyo dirita kuu geyna maya deeradaan ayaan baskale ka raacaya kulley waxay la tahay baska inuusan imaanin marka halkan aad ku sugaysa soo maahan halkaan aan ku sugaya waa bixi kartaa hay jaawe walaal hal tikidoo deeradaan lacagta soo hormaray mahadsanid adigaa mudan ما قصة وين إيش سام حي ودي سنة رجيب ودش انتقى ما شو تاغناين الدم لو ما نسى صبر كده القات كبدي عليك مو جات ده أنا متلقات بدني عمر بعدين أنت تاغناين واكو أركع ودول قات بنت بس كن وايمت هالو هالو وأنا ماذا أوكي دم الهراء صور دقائق صوصع حوجا ماشى بابور تباكين كذا لو قلت لك الإيمو إيمو جديد ميا صوصع ريتو أي ويلكي سيداتي ولا شيء قيمة بدن هي سودو دوّا فراي ديب هذه مرة وقارجنا كحس أوكي دي ماله هي صوصع بابور كنصار عنو ميماتي وي ماذا هاي وايد سلام هاريتو دماش عنو جاي كور وفي هاي سفركي ورم يا اخي جعتي مخعطه ما سوق شيء بيلو هاي ما يحل بوها بلا هاي قناع سياقي ورم وفينا ابو أوت مخنان شاق والول فر بدن ناس نقول من كان عذاب بنلوه ما يحستن الزائد ولبه والحسنة والطرقنا أي نقد شكله أنا هذا ويل إني أشوف مرة بجبر أربعة أصاص ميا صاحبك أجيت هو لانكي سروفة يا أركتي يقرنا وعناع دماينه صاصا كاروا يسوري بدن إن أروست دماينه طبعا هاي محدوية جبران رواين اللي ضلص دويا بي حتى جبر أربعة أنا أساسا جبر كتار بيلو ومر هرب واحد سيدك كان كجاردن ميا وفي عنتيني مستر واكو مقلا لبدا مالمود soo socota aan Janice meelay familka raba inaan dalxiis wado okay saasino han sana ku soo wacay safarkeena bari ka war maxaa ka leedahay horta marka hore badriyaan aadina meesha tacsiida wartiina raba inaan ku soo dhigi kadibna waa ka tagayna laakiin cashadin inaan cuntiina ka horeysaya baaya isku dilnay akhay cashay caw waaye bari alseel kacay oo ogtiigno
പറവയായുയരുവാൻ ചിറകുകൾ തേടിയിടാം. പുലരിവയിൽ വിരലുകളാൽ ഋതുവെഴുതും മായാവർണ്ണങ്ങൾ മലരുകളെ കോർത്തു നാം അണിയുകയായൊരു പൂക്കാലം പ്രിയകരമേതോ ഗാനം പാടി നാം മെല്ലെ സ്മൃതികളിലേതോ സ്നേഹം പൂമഞ്ഞായി പ്രിയേ ഒരു കനവായി നാം പറവയായുയരുവാൻ ചിറകുകൾ തേടിയിടാം. ഈ നീലശൈലങ്ങളും ഈ വാഹിനി തീരവും പാദങ്ങളിൽ സ്നേഹമാ പൂക്കൾ വിരിക്കുന്നു. ഇനി നീളും വഴി ചിരിതടുതിരുന്നു യാത്രയിൽ കണ്ണൂലിനി അലയുകിലാവിനൊപ്പം മാഞ്ഞിടല്ലേ മങ്ങിടല്ലേ ഈ സ്വർഗതീരം. xerigan aa ujeedid xeriga labaad ee ugu dheer qaaradda aasiya waay 10 towers leeyahay markiisaan u fiirisid tan kale dhulkan aa ujeedin bisha December ilaa January baraf aa daboolaya waaw markii barafka la qata markii aan dib ugu soo laawadina ka baqinaya Bye.
maxaa iska fiifiirinay quruxlo aad tahay anaaba kuu sheegaya marka kugu horreyso goor la kulanta miya haa laakiin labada qofood markay isguursanayaan waxaa wanaagsan ayaga marka hore inay soo sheekaystaan heershow xaggee soo maraysaa isgoysku waan soo gudbee waxaan ku weydiinaa bidix maan u leexdaa mise midig ii sheeg bal bidixaa u leexanaysaa bidix maan u leexaa yes bidix u leex maadaama bidix u leexday inta dhiman anigaa dhammaystira waxyar kadibna waan joogaa meesha okay waa ii fahamta soo maaha waan ku fahmi gurigaan kugu sugaaya waa ku salaama libaax waa kaa qaaday soo dhawow safarkii niiga warsuuha beelo ahay okay welcome soo dhawow nabiim hay soo dhawow hayahaye adeer waa ku salaamaya ay waddada iga waran saeedno rafku ku soo rafaaday ninkan iska daa warkiisa markii kugu horreysay inta imaata waa mayno haa waa markii ugu horreysay soo gale minankiino ganacsigaa iga waran baarish waa ii kala kacsan yahay beelo ay mandirka ma booqa tahay madarka ma booqda haa hal maalinna kama baaqdo waa mahadsantahay waad mahadsantahay aan soo dhawaada gabarta sokorta miyuu soo tuurtee may wax yar leh shaqadaada ka waran si fiican ay u socotaa adeer beello waay hay xaaskaaga carruurtaada ka xaaskayga way fiican tahay carruurtan iskuul ayay jiraan wiilkaana navin ayaa la yidhahdaa adeeraan u ahay waa ku salaamay rishi ayaa ii sheegay in walaashiisa wiil rabo wiilka adeerku ah marka ayaan la jeclaystay inaan usoo doono marka labadiina isma taqanin haddii aad isfahantaan oo wax walba way hagaagayaan kadibna gurigiina ayaa la qaban qaabina waana beello ina isfahmaana ka horeysa horta ogolaadan waayahay waan la soo sheekaysanayaa walaalkay mar walba adiga iyo rishi ayuu idinka sheekeeyaa ahaa walaalkaa muddo dheeraan isan qaanaa rishi saaxiibkiisa qaaliga waay walaalka waxaan maqlay nin wanaagsan inuu kuu raadin oo adigu ku guursado anigana shukaansiga iskuma wanaagsanin waalidiinteedana waxay ii soo go'aamiyaan ma diidi kara inaan ogolaado waan ku qasbanahay ilin waa waalidiinteedee teeda kale maadaama aan adiga guurdoon tahay waan ku imaaday arrinkan maxaad ka leedahay horta aniga goordhawaan shaqo bilaabay jaamacaddan assistanti ka ahay mideeda kale waxaan rabaa muddo sanada inaan shaqaysto arrimo guurna uma soo jeedo laakiin reerkayga ayagan waxba i weydiin ayay go-aan iska gaareen adigana ku wacin taasna aadaan naga xumahay runtii waayahay sida ila tahay reerka way ku soo qaldan ka raali noqoyaa jawaab degdega ma aanan kaa filinayn waxaan isdhahay markaad soo fikirta kadib ayay go'aan qaadanaysaa aniga laftirkayga jawaab degdega muhiim ii maaha baay hay iiga waran wiilka noo imaadeena waa wiil aad u fiican labadooduna aad iyo aad bay iskugu soo ma ka heshay wiilka gabadha waxba imay sheegin laakiinse waan dareemayaa kulli okay dhimale waa iska sugaynaa walaashay baski waa diyaar waa kana soo maaragtay haye walaalkay okay markaa soo noqo telefoon iyo soo dir diyaar waa walaal safarkaaga siduu ahaa beelo ahaa macalin wax walbana way hagaagsanayeen dalxiisna waan aadna waan soo baashaalna dhammaan familiga waana soo laabanay kulankiin ugu horrey siduu ahaa oo arrinta wiilka maadi weydiine aniga marka hore maba ogeynba guriga markaan taga kadisaa laygaga dhigay wiilka aad u fiican yahan oo akhbaarta o dhan waa idin soo gaartay miya ahaa riisha noo sheeg wiilkii inuu fiican yahay adigana akhbaar lagaa sugaa halo haa walaal soo hadal walaashay ma cashaysay maya adigana ma cashaysaa baay haa qolkaygan hadda soo galayba abuu tv-ga iga damiyaa okay aabba ka waran aabba muu baanta hadda ma kugu geeyaa may anuuna annuu waa fiican yahay halkaanuu jooga wiilkaygana ciyaaruu daawanaya waa kana cashar ma akhrisanayo miya casharka wuxuu yidhi waa ku daalay micnaha 10 daqiiqa camal aan rabaa inaan tv-ga daawado halo walaashay albaabka la garaacay waa kugu soo celinaya teleefonka waayah walaal
hayaa khayrta maxaad u baahantihiin لويس لويس أنتوني هي وتقانا صماع مسودي اللودي ايجي كتلا يريسو وانكو سلامي ريشي ساعة ماله dadkaagna yaa waay oo cadcadkee aabba adigii wiilka orda gudaha gala ay soo baxay garkay tartiibtaha luis ka daa sideed ku ogaatay horta magacayga ma ii sheegi kartaa tan kale aniga horta arrimahaaga waan soo maqlay maalmihii ugu dambeeyana arrintaada aad bay igu yeeraysay inaad tahay macallinka konfuga kriketkana aad u taqaano warbixintaadana waan soo ururiyey waxaan u malaynahay inaad ii imaanaysa kadibna aad garab isiinaysa laakiin ma dhicin labadeenna meesha ayaanu ku sheekaysanin waa ku baryaa meel allaalay meesha igu yeertid anigaa kuugu imaanaya diyaarna waa ku hay min fadlan luis waa ku baryaa jooji adiga waxaad rabtaa soo maahan aniga adiga inaan sheeko wadano laakiin heshiiska naga dhexeeya ma ilowday ma taqaanaa labadeena heshiiska inaga dhexeeyey tan kale waxaan maqlay adiga dagaalyahan inaad tahay balse dhalinyaro waxaan rabaa awooddiisa inaad i tustaan dhaqsada marka waxaan doonayaa awooddiisa inaad i tustaan dhaqsada ciyaarkay riisi waryaaway ciyaarkay macasaan weeyashi ka bax ninkan ku dhahay haddii kale kulligiin ka waa idinka siinaa
ritu gurigeena la joogta baa anaga argagax shock soo maaha haa shock sayd ayay ahayd laakiin waxaan ka akhriyey newspaperka riishiyo laga baabiyey xaaskiisii canugiisii aabiisii inta dadkaas naxariis ma laha xaaskiis uur ma lahayd haa uur ayay lahayd weliba 7 bilood wallayla waa huwaal dadkaas naxariis inaysan lahayn in aqoon ma loo leeyahan ma la yaqaana booliska baaritaan wada hindi anoolaata ajiid xaaladda ka waran xaaladdu way wanaagsan hadda qayb dambaariska imaaday waxaan la dilay 3 qofood haye sidee waxaa ka mid ah oday 60 jir ah sidoo kale naag 30 jir ah uur 7 biloodna waa ay lahayd burcad naxariis laayaasha ah canugira 10 jir waa ay raaceen oo saddexda ma dhinteen yesli waxaa kaloo jir wiil 36 jir ah dhaawaco isbitaalka ayuu hadda ku jira xilliga la taagan taliin haye qaybta sheybaarka weli jawaab laga soo saarin baaritaankiisu waa uu socdaa haye sabir ma jiraan marka waaxdan baarista sabir ka qaadan baaritaan waa ay ku wadaan taliin laakiin aniga markaa qiyaas waxay leegtaa tuugay reer guriga wax dhaqdhaqaaq oo dheeraad ah miyaa samayseen may wili hoosh waa wadnaa mana laga yaabo inaan ka caajisan okay marqaatiyaal haday jiraan sidoo kale dhakhtarku waa laadin waxaan u sheegay ninkaas markuu soo kaco telefoon inuu iga soo wac markaa utay kadib waa waraysi doona wix ka soo baxan aniga kula soo socodsiin doona wax kalmeed u baahan tahay maya avijid hawsha wado sheegin dad sore bukaankan xaaladiisu waa sidee akhbaar iga sii bal adigoo raali ninka kani si xun baa loo galay maskaxdoo dhan ilaa iyo lafahoo dhan waa la jijabiyey inuu ka soo kacona uma malaynayo haddii uu ka soo kacana waa nin nasiib leh sida loo keen hal mar xataa sooxdinad kama soo keen 48 saacadood ayuu suuxsanaa umana malayn doono wixii hadda ka dambeeya inuu soo kici doono ninkani hayreetu hareesh waan ku salaamay maalintii aan kulmayna wiilkan aan kuu doonayay ilaa iyo hadda safar ayaan ku jirnay haddaan jaanis soo helnay waana kuu imaanay dhibaato ma laha waa caadi wixii dhacay waa maqalnay waxaan ku weydiinaa ciddi dhibaatadan geystay yaa waa inoo sheeg bal ma ogaani wax qaraaba uu kula jooga ma jira haa adeera imaaday oo tuulada ka yimid walaal asxaabtiisana way joogaan farmasha waxa u baahantaa ma jirto haa daawaan ka dooni rabaa maya u kaadi anigaa kuu doonaya daawada maya kuma ogolaanay aniga idaa ma baahna haddii aad noo ogolaanayso waa kula joogi karnaa garab si aan kuu siin maya looma baahna dad fara badanaa ila jooga waad mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinayaa adeer caruurtii eelka u laabo halkan anigaa ku filan habadeedii sidan kaaga tagaa la socota wiilkayga inuu xanuunsan ma samay kartaa sanu adeer asxaabtiisaa ila joogta keligay maahay mana ciloonaya gabadheeda xasiskiilo
inta ugu badnayd murugada hadda waan ka soo gudbay anima murug ku ogol hadda kadib meeshaa ma sii joogid guriga ku laabanaysaa adeer mar kale ayaan ka fikiraynaa hadda dib u laabo waa ku baryaa orod carruurta u tag muddo halkaan joogtay وريه هوي صعد بقى كعلى ورصة دقاق مجديك صباح ريشي اسف عنه فير كوان صوما ريشي عبسيد اسكدا سفي عنه فير بوليسكا وقت ولا قرب كذا تاجن ما لا يابا قف كل دبات إنه كوجيست ستحدر له فير مرقاتك نول وأديك ريشي اسكدي arrinkan inaad noo fududayso wiilashan wejidooda si fiican u fiiri qofkaad ka aqoonsan farsan ugu fiir xitaa magaciisa ha sheegin cabsida iska daa annagaa ku garab taagan may tali aniga dadkan ma aqaano fikirka faraha badan iska daa si fiican wejidooda u fiiri may tali aniga hal nin raggan kama xasuustay qasbi waa ku bariyaa may rishi sidaan ha samaynin caddayntaadu waa inoo muhiim حسبينيسا ما أنا ما أقان رجعت لي ما أقان halo rito haa baay xaaladaada markaad soo bixaysa ma aysan fiicnayn aniga waxaan ku dhihi lahaa gurigaas inaad geysid ma ahayn walaalka dib u soo laabta walaalka keliima xataa adiga kuma wanaagsano gurigaas taladeeda haddii aad qaadanaysid dib u soo laabta waan ku fahmi karaa walaashay haddaabad fahmaysid way fiican tahay intuu walaalka ka caafimaadaya nala joog xataa haddii aad taas ogolaanin garab i weydiiso xilligaad ii baata diyaaran kuu ahay taleefankaagaan sugayaa khayr badanaan kuu rajaynayaa waaya abaaya haddii aan garab u baahda anigaa ku soo wacay okay bye أبو ويلكي حاجة جوكتا كواوانو حاجة كسوغنتاي هعبسني أنا قرب كاجا تاجن أبي حاجة جوكتا
igarkay rishi waa kan antaan joogaani abbo igarkay rishi halo walaal tartiib streamnext.tv waxaad ka daawan kartaa aflaamta ay ku tarjixay fanbroid sidoo kale waxaad ka daawan kartaa kanaalooyinka live-ka isboortiga soomaalida carabta iyo wixii la mid ah streamnext waxaad ka daawan kartaa tvda android-ka ah rasiibarada android-ka iyo weliba sidoo kale mobaylada android iyo ios digniin waxaa jira dad ku qarata magaca fanbroj fadlan iska ilaali inay wax kaaga gadaan magaca fanbroj haddii su'aal ama caawinaad aad u baahan tahay fadlan marka hore la soo xiriir nambarkan shaashada ay kugu qoran tahay fanbroj tv waa barbaariyaha bulshada waa weelkeyga waa weelkaaga ritu hay nafiin haa ritu dalxiis ma halkan ku timid maya dalxiis maana ka imaan adiga isbitaalka miyaa ka timid maya isbitaalka ma imaan asxaabteeda ayaan la deganaa ayaga ay ku qasbay agtooda in aan joogo anna waan ka ogolaaday maalmahan teleefonkaaga waa u dansanaya ayaamahan teleefon ma isticmaalin waxaan go'aansaday maadaama walaalka uu xanuunsan yahay isbitaalka inaan kula joogo dhib ma lahan asxaabtaa ila joogtay soo maaha okay aniga run ahaantii maalmaha dambe ma aan hersan mana aan hergelin gurigiina ayaan tegey dadka deriska ayaa ii sheegeen gurigeyga inaadan imaanin waxaan rabaa go'aankan kaa sugaya in aan kaala hadlo oo aad si deg dega jawaab aad ii siiso aniga maba ka fikirinba arrintan mar kale aniga run ahaantii halkaan maana kugu imaan jawaab deg dega hadda inaad ii siiso waad ka fikiri kartaa waana ku sugayaa ha isugin ayaan ku dhihi lahaa sababtana maaha inaan adiga kaa helin ee guurka ayaaba weli maskaxdeeda ku soo dhicin may aniga hadda kuma qasbayo go'aan deg degana qaado kuma dhahaya ka fikiroo keliya nafiin runta haddaan kuu sheego aniga gurigiina kuma noolaan karo walaalka inaan la noolaada ayaan rabaa gabar iga wanaagsan inaa hesho ayaa laga yaabaa iska guurso nolol qurux badanna kula noolo
igana raali noqo. diyaar soo marig saacad oo qabo bilow soco bravo wad soco orod sayd orod dhaqaaq weerar qaad wad kuwad dagaalam gees yata فين si fiican u fiir bravo hit bravo si fiican ugu soco soco
akhyaaray halkeed u cararaysaan dagaalka idinka ayaa soo raadsaday la dagaala dharsada soo socda dagaalka weli ma uusan dhamaan dharsada العلي سيدنا قد صمى وريا هديات عررت إلا أنت عرر كرتا هديات صغرت إلا أنت القوين كرا وريا مكو فكرت لن يرتعني إيش قيسة ماشي دون تسكو قري وقلتم بين هل كان أيكو كنا لويس أين كنت صاير هوستي دايت إيمانيسا بوليس كان مركز واي كرة سنة ميت كان إياه ولا الكي مرتبة ماشي أنا كوجن عصدا ملاقيابه وكبريا مركال لنا خلي كركاغن هستا وكبريا ولا الكي عرس عوريا إنك أنا أتكالي تلفونك ما تنمع سودان سنة وحرمنا كوشيو بطل يا صاحبتيسا حافظينا إني إمادين فيرها كسون لفيرها لكن وحبلنا مركل هذه صولتان الكائنات كسيسي بنقص مدينة نقول 10 وأورينا 10 كحجنا مدة كشكي دونا نقدر لك هذه تلفونك هذا دارنا ذا مهم سنوية أبوه حير سوبي
अरे أكن كيما إنه بحسو كان جروف بإسكوب الرياض دي تاني واد أنت مليانه خرج شوف محسوب ترى يا دو أدلنا ملنا هاي لما شو هذا ما صورتي إيسا تيرور تعالى كاسكوي وأكتاينو هاي دخلت كدب لك صوعايا walaal jarnaalka maanta soo bax ma haysan واكنا وسطورن كي لبتد عادسون كسي كسبحيا أي ما حكى لرطان كوسابنا baa ka calin shaa باك على شاي ما حكى له li xabo oo kuna اللي حب أكون هاي ما حكى باك عنا اللي حب أكون هاي هاي واكو أنكو دياري waayo laba joornaalna iibi lama xaashi meeqa waay lacagta boqol iyo konton iska bixine okay adaa mudan ay kale ya akhay jajabkaaga qaado oo beryaan cabitaankaaga buxee adaa mudan jaaw ya
walaal beejka afraad waaye haye taliya rishi kiraal ma kiimad aday maya karela kama kootam ayaan ka yimid istanbulna waa deganeen aabahay ayaa aniga meeshan i keenay anigoo yar ayaan joogi jiray mudduuna ka shaqayn jiray yaraanteedina waa joogi jiray af soomaaliga inta kusoo bartay rishi engineering meeshaan ku soo bartay muddo 6 sanana goobta soo aan ku noolaa okay waa ku fahmay asxaabteedo dhan meeshay wada joogeen waan maalayaal okay waa gartay in macalinka karsiga ay taasoo yes tababarkaas siiso waa noocay hore ma u maqasho tababarka nooca Wing Chun la yiraahdana Wing Chun waa maqal Bruce Lee IB man ka maqlay Bruce Lee wuxuu ahaa shakhsiga koowaad oo ka qalan jabiyay IB man macallinkii baray ayuu ahaa ciyaartaas Kung Fu ma ka tirsantahay maya kama tirsana qaybo kale ayaa laga soo minguuriyay ciyaartan okay arin muhiim ah waxna ka weydiiray weydiin kartaa askarigan dhinacii fadhi wuxuu ii sheegay shilka markuu dhacay goob joog inaad ahayd waa saxantahay taliya shilkana muddo 2 bilood ka hor ayuu dhacay ee Dehradaan Malayalam Association xiriirka qaabilsan martial artska ee gobolka Kerala ayaa xaflad soo qaban qaabiyay arday wayni salama dhamaantiin maanta cashiridiin oo idil waxaan idin siinayo 2 qofood waa Sifuur Shram iyo walaashiisa Ritram idinkoo mahadsan labadiin waxaad ku soo dhawaataan maslaxa soo dhawaada hey hay asxaabta galab wanaagsan oo wacan tartiib nasta marka fariista dhammaantiin waxaad aaminsantihiin kelmadda Kung Fu in ay tahay kelmad Shiineys ah balse dadka ka soo jeeda Shiinaha markaan weydiino waxay noo sheegeen wax waliba la baraatikeeyo lagu celceliyo in loo yaqaan Kung Fu martial artist kaliya looma isticmaalo kelmaddan Kung Fu martial artist-ka qaybo badan ayuu leeyahay isteeladaasna way kala duwan yihiin like Wushu, Wing Chun, Tai Chi, Shaolin Kung Fu mid waliba wuxuu leeyahay qaab u gaar ah oo loo baraatikeeyo One, 2, 3, 4, 5 قراعة وقبا ورياض ديك معك قراعة دتك ما دينا عيك الرعد إسلام لاب كان كمهلم مركلة كوعلية ديار قروبة 1 2 3 casharadii koowaad markaan bilowna inaan bixinno arday fara badan ayaa ka soo horjeesatay qaabka aan martial artska u bixinayna ayay diidanaayeen bilowgii koowaad barafaad fara badan ayaan kala kulannay ardayda diidanaa martial artska macallimiintii meesha jooga ayaa waxay igu qanciyeen ardadaas inaan la macaamilo waxna aan baro macallimad waxaa jirtay markaasi bixinaysa casharada magaceeduna wuxuu ahaa macallimadaas nigmo waxayna bixinaysay Wing Chun martial arts nooca loo yaqaan Wing Chun waxaa lagaga hortagaa qofka markuu ka awood badan yahay qaab counter attack ayaad qofka ku weeraraysaa ardada meesha joogto dhan waa aan wada barnay ugu dambeyn sheekadii waa isbedeshay adiga magacaaga muxuu ahaa mari adigana sidoo kale daala soo istaaga labadiinaba wiilashiinniyaa bannaanka u soo baxaya booskiina ma tagtaan labadiinna
soo istaag fiican tahay soo ma fiicnid okay bas tartiibtaada ya xoogaa qoorta jiljileeciya hay hadda caadi ma tahay sometimes practicada markaan bixinayna dagaal wuu ka dhalan karaa waana isqaban karaan ardayda laakiin macallinka markuu bixinaya casharka in gacan loo qaado mamnuuc ayay ka tahay goobta waana xaalad kale qofka intaadan ka hortayn kor ina akhrisaa loo baahan yahay tillaabada qaldaneed uu maalintaas qaaday indhihiisa ayaan ka akhristay dembiile qaab daran inuu yahay ninkaas oh kadibna aniga walaashay kiiska wax weynba kama aanan dhiginba ayaga way bixin ardada ayay u tageen waxay kala sheekaysanayeen shilkii meesha ka dhacay ardaydii ayaa ku adkaysay iyo guddigii ugu dambaynna ayagoo caraysan ayay goobta isaga dhaqaaqeen aflagaadana way ugu dareen run ahaantii maalintaas buuq xoogan ayay meesha ka dhaliyeen isbuuc kadib anigoo gurigayga jooga oo tv-ga iska daawanaya ayaan waxaan arkay breaking news iyadoo haddana maxkamadda lewis antony ay ku weysay caddayn kadibna ay sii daysay taas waxay caddaynaysaa lewis inuusan dembi gelin xeer ilaalintan waxay sheegtay lewis caddaynta laga keenay inaysan ahayn caddayn jirta markhaatina aanan loo hayn oo loo baahan yahay caddayn saxa in laga keeno lewis qiyaastii aan ka haystay ardadaasi dhab ayay ahayd run ahaantii markaan arkay maxkamaddu inay iska soo fasaxday oo ay bannaanka yimaadeen ardadan wax ka qabasho male run ahaantii xaaladooda aad iyo aad bay markaas u cakirnayd waxaana dareemay in gangister weyn uu ka dambeeyo arrintii feeda ayaa meesha soo gashay go'aanna waxaan ku qaatay inaan arrintaas adiga kaala hadlo gaangiistarada ayuu madaxu yahay kartagan si wanaagsan ayay u yaqaanin gaangiistarada kale sababta kuwaan loogu socay wax kale ma ah tababar wanaagsan ay haystaan oo weliba dhanka marshaalka ah intooda badan kareel ayay ka imaadeen tababarka uu siiyana maaha annaga midaan aqoon u leynaa balse adiga warbixinta aad noo soo gudbinaysaa noqoto dembiyada ay galeen iyo meelaha ay ka jilcayiin insabo adigaan kuu xilsaarnay inta dhimi sooma booliska ayaa dhammaystiray adiga wax tilaabaha dhankaasaa u qaadin waad fahamta sooma keliya warbixinta noo soo gudbi waad igu ogtahay taliya dhaqdhaqaaq walbo ay raggaa sameeyaan anigaa kuu soo gudbinaya xogtoodoo dhammaystiran iyo macluumaadka iyo waxyaaba ay sameeyaan master dhegeysto arday fara badan ayaa dhigata ardadaas waxaan u baahanahay dhammaan siifiyadooda inaad jeeg ab ku samayso kuwa foodo badnaa maa ka hadlaysaa sansaya ahayo kombyuutarkiisa ayuu ku jiraa u hubi cv-gooda qaab online ahayne ma aysan nooga soo gudbin si caadi ayay noogu imaadeen annagana waan aqbalna wax dhiba miyaa jira noo sheeg bal aan ogaanaya macalin adiga dhankaaga dhib miyaa ka jiro taliya xogo fara badan oo adiga muhiim kuu noqon doona ayaan kuu soo arooriyey raggan intooda badan waxay ka kala yimaadeen delhi iyo kareela xogtan aan ku haya haddii aan kula wadaago run ahaantii taariikhda booliska ayay diiwaan u noqon doontaa marka ma kula wadaagi karaa haddii ay macquul tahay xogta aan soo arooriyay ayadoo dhammaystiran aad iyo aad ku dhawaaq maxaa sugaysaa ninkaana ka bilaabana luis antony ayaa la yidhahdaa kii national karate award ee delhi ayuu ku guulaystay 16 jir ayuu wakhtigaas ahaa markuu ka qaaday national champion karate waa sooma yes sir ciyaartooy qatar ayuu ninkan ahaa run ahaantii muddo fara badan ayuu meeshaas joogay ugu dambayn laakiin waa laga soo buriyey sababta looga soo buriyana wax kale maysan ahayn ee muqaadaraad iyo daraagis ayuu bartay kadib ayaa bannaanka la keenay xiriirka ayaana aniga ii sheegay intaas inuu isticmaalo daroogo markii la ogaaday dabadeed tartanada caalamiga oo dhan ninkaasi waa laga mamnuucay wakhtigaas wixii ka dambeeyey fowdo iyo rabshado fara badan ayuu sameeyey waana sababta keentay inuu samaysta tiimkan qatarta ee gaangistiriinta isaga ka dhinac dagaalama luis antony oo keliya maahan asxaabtiisa qaar ka mid a ayaan xogtoodao dhammaystiran aan kuu soo arooriyey taliya waxaana ka mid ah ninkan waxaa la yidhaahdaa naasir cali waa ciyaartooy qatara kareela ayuu ka yimid asal ahaan waxa uu ciyaari jiray ciyaarta loo yaqaano moto player waxaa lagu tilmaami jiray ciyaartooyda ugu khatarsanaa ee gobolka inuu ahaa koobo badan ayuu ku guulaystay ugu dambaynna waa laga ganaaxay inuu ciyaaraha ka qayb qaata sababtoo ah fowdo ayuu ka kiciyey garoonka dhexbartankiisa rifriga ayuuna garaacay hadda lewis ayuu la joogaa kanna himashusin ayaa la yidhahdaa utara bardesh ayuu ka yimid xog dhammaystiran ninkan ilaa hadda lagama hayo laakiin wuxuu la shaqaystaa ninka lagu magacaabo luis antonio ninkanna jason ayaa la yidhahdaa saddexda wiil ee hadda kahor aan kaaga sheekayn jiray mid ka mida waaye waana ragga ugu khatarsan waana garabka midig ee ninka luis antonio la yidhaahdo runaantii ninkan wuxuu yaqaanaa ciyaarta nooca loo yaqaano juuda waana ciyaar halisteeda leh ragga ugu khatarsan ee luis uu ku xisaabtama ayuu ka mid yahay ha ka reeben santaal oo ka yimid kunyi kumaari halka lagu magacaado waa kungufu balayer tarzan boy bikudar rudra reacsi
anuu iyo baabaa isilaaliya tartiib meesha u maraya meel qurux badan ku yaala ka warne هي بابا ماشي سعد وما قرح بدنا نسافر قرح وعرفتي طرح أي مروسة طرح أي سوبر لوك دي دوكيمنتي نسك فيرسة هوا أنا جيت جري عدل شي دايما أوكي وان بس ماشي ما قرح بدنا هذه قرح بدنا هوي قال كي ترتيب أنو قد عنا ماشي بور واي هوي هي ترتيب كايا على باي تفاح هوي ما بسلان ناس كلاف يا أخي سوي كان أي ريسي مجد ماشي تفاح ما يورته تفاح وكلي معها فكادنا ويك بحيسا ما سي جوكنا ماشان أبو إسكول ما دقيت ميا محكو ولا عادي ماشان فصحة وفايدة سنة أنا برف كده عاينا أركاروا أوكي حلقة برف أنا كان ديسمبر إلى جنوري برف كده عايا أيوة إيماننا أنا دمانتي أنا وذا إيماننا gaashaan laba jid raana diiba kula hadlo iga waran bay akhay guriga baaritaanka waa uu socdaa degdeg faraha badan iska daa wixii soo kordhana dib ayaan kaaga soo sheegi doonaa kaliya dhegtaada taagnaato dhibanayaasha afar socdan waa la dil wax cadeen aan ilaa hadda anaga kama aan helin baaritaanka waa wadnaa shaki ma jiro miya shaki hadda ma qabnaa wixii soo kordhana dib ayaan kaaga sheegi doonaa okay intaas ari bad garan karaa samaan haa tidhi joornaal weliba bagga hore ayay kaga qoran yihiin 4 gaangistar ayaa la dilay 4taas gaangistarna waxay u shaqaynayaan Luis Antoni isku dhac gaangistar ayayna ku dhinteen raayigaysa maxaad tiin horta ugu horeyn idinka waxaan la aamini karin ayaad siin gaangistarada idin baabi ilaa hadda gacanta kuma soo dhigin sabab maxay ku dhacday taas su'aaliga jawaab waa in layga siiyaa waa kuma dilayaashan hadda leenugu soo baxeen gaangistar miyaan ku tilmaamnaa mise boolis حقي كله مالي السنة أبو واكم مقلا وضدا متقانا وضدا أو جدي تورتارين تذا مكابي شيكين تدفر بدنا مرين كديب نوالس كو دقال بدنا كدعي أو قدام بين تدكاس وحي آذين ما يشسر أنت آذين كوتي وحي مرين لكان أو جدي بنان يلوخ من كان أو جدي وضدي إيك أي سوبيان واي وضدا لعله هدي لغو الصعدة أنت لا تقام متقانا ورتا waxaa lagu tagayaa sama buurta fiinteeda sida u socono buuntaas fiinteeda kole in la tahay la'aan laakiin sababtoo ah meesha haddii la kor waa lagu dhimanaa qof tagayna ma la'aan ilaa hadda igarkayrisi
faydaa waxaad la socotaa isbuucii lasoo dhaafay gaangeystarada uu talinaya ninka magacaabo luis 8 ka mid ah ayaa laga dilay ugaarsadaas si wanaagsan ayaan u aqaanaa ilaa ma hadafkiis uu ka gaaraan ilmaha inuu istaagayo yaa waay ma taqaan horena muu maqashay magaca layidhaha rishiram lowis waaw wada lama filaanna maanta maqlaya maxaad iigu sheegi weysa arrintaad hadda lemba ka hadlayne lowisow mar hadduu hilmaankaaga bato waxaa soo dhowaaday baa layidhahdaa lugooyadaada xilligan kula goyn lahaa ayaa dhow guriga betelan tagay waa kaa soo waay laambi gurigiisan tagay waa kaa soo waay xaggee ku maqnayd intaan ku raadinayo dhan raadinteeda dhibkay kuga haysa maxay tahay mastarka ii sheeg bal haddii aad aniga i doonaysid looma baahneenba inaad i raadiso meeshaad joogtid ii sheeg aniga ayaa kuugu imaanaya waan is arkaynaa loma baahna goobtaan ku suganaha inaan aniga kuu sheego karti iyo awood haddaad leedahay isoo raadi ugu dambaynna imow meydkaaga ayaa meesha laga qaadi doonaayo carruurta aad baan u jeclahay waan idiin salaamay carruurta iga raali noqda maadaama xilliga cashadiin aan idinka qasay waxaan u baahanahay riishii meelnaad iigu sheegtaan intuu jiraa ii sheegoo keliya waa idin baryaa waad la socotaan meesha uu ku sugan yahay soo maa hey waryada ii baara meeshaan waayahay annagana goobtay daba hoosna ka soo fiiriya kow kastii haddii aad aragtay kana ka fiiriye socda waayahay waryaha kaali albaabkaan hala jibiyo jibiya haya haddaan jibiyeyna oo adeegsada awooddiina dhaqsada igarkay horta meeshaan 10 taawaraa ku taala waa kala tagaynaa kulligood waa fiirinaynaa isdeji marka meeshaan aad ay u qurux badan tahay taawarka 10aad meesha ugu saraysa fiinteeda kore waanaad igu timaadaa waad dhimanaysaa mardhow
meeshaan nolol laguma bixaysid waa ballan kow ayaan kaa siinayaa macallinka kungfuga waaw meel beel ayaadna keentay qaabka aad meeshan u dishtaan garaysana waan ka helay runtii aad noogu dooqday waa meel argutiga ku wanaagsan waxaa ku fiicnayd meesha muusicii dhimashada in la daaro codkeedana la dheereeyo cid walbana ay maqasho fikirkaaga runtii aad baan uga helay waan ku qanacay run ahaantii maanan ogayn gabar qurux badan inay kula dhalatay waaw sheekada waa romansi dhimashadii jacaylka gacaliso sidaas maahan hey goordhow waad dhimanaysaa wakhtigaaga wuu dhammaa hadal wanaagsan ayay ku hadashay haye macallinka hadda maxaa xiga ii sheeg adigaan kaa sugaya adiga dadkayga ayaa dishay waa okay anigana taa beddelkeeda waan baxay reerkaaga ayaan soo baabi'iyey labadeena waa kala qabnaa markanna waa aniga tookadayda waad dhimanaysaa haddaayad halkan ku dhimanaysa tookadaada iyo tabartaadaba ku tasho diyaar waxaanu ahay kow inaan kaasii adiga dukala hey waan ku dilayaa dhaqsada dila warjabanika
ku soo dhowow fiinta sare ee buurta adigoo mahadsan muqdisho waan soo fuulaya waan soo socdaa maad dhimatid maxaad u nooshahay